diinteena islaamku waxay inagu baraarujisay in timir lagu afuro waana sida nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu inoo sheegay xilligan casriga ah waxaa la caddeeyay in timirtu ay leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaad leh iyo waxyaabo badan oo macdan iyo nafaqo ah oo uu jirka u baahan yahay sidoo kale axaadiis ayaa inoo sheegaysa in maalin kasta la cuni karo timirta oo caafimaad badan leh sida uu wariyay Anas bin Malik radiyallahu anhu nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku afuri jiray timir markaas geedka laga soo jaray kadib ayuu salaada maghrib tukan jiray haddii uu waayo timir fresh ah wuxuu cuni jiray timir qallalan haddii uu waayana biyo ayuu kaban jiray waxaana xadiiskan wariyay imaam tirmidhi haddaba waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa 6 faa'iido oo ay leedahay timirta faa'iidada koowaad timirtu way jilcan tahay si fudud ayaana u liqi kartaa marka dheefshiidka way u fududahay calooshana dhib uma geysto haddii aad cunto kadib saacadaha dheer ee aad soomaneed faa'iidada labaad in timir lagu afuro waxaa laga faa'iidayaa in gaajada ay si degdeg ah kaaga bacdo oo aadan ku degdegin in cunto aad u badan aad cunto cuntada badan ee lagu afuro waxay dhibaato u geysan kartaa caloosha iyo dheefshiidka faa'iidada saddexaad in timir lagu afuro waxay keenaysaa in caloosha ay diyaar u noqoto cunto kale maadaama ay gaajaysneed shaqola'aanna ay ahayd muddo saacado ah maalintii oo dhan hanaanka dheefshiidka ayaa sidoo kale diyaar garoobaya faa'iidada afraad timirtu waxay qani ku tahay macaan dabiici ah oo si degdeg u soo celiya awoodda jirka sidoo kale waxay leedahay nafaqooyin u wanaagsan unugyada maskaxda iyo neerfayaasha faa'iidada shanaad timirtu waxay kaa difaacaysaa dibirada iyo caloosha oo ku istaagta ama saxarada oo kugu dhegta maadaama ay caloosha ay waqti dheer gaajaysneed faa'iidada lixaad cusbada alkalinka ee timirta ku jirta waxay dib u habaynaysaa aasidka jirka ku jira ee cadaadinaya dhiigga ee ka dhalata hilibka iyo cunida raashinka leh karbohaydraytka kuwaas oo sababi kara cudurro badan sida sokorow ama macaan lugu xanuun dhagaxaanka kelyaha iyo caabuqyada kaadihaysta dhiigkarka iyo baabasiirka faa'iidooyinka kale ee timirtu leedahay waxaa ka mid ah timirtu waxaa ku badan maadooyinka magnesiumka iyo calciumka sidoo kale waxaa baaritaan lagu ogaaday inay daawo u noqon karto xanuunada neef-mareenka sidoo kale waxaa lagu daaweyn karaa dhiig la'aanta xasaasiyadda iyo calool fadhiisiga timirtu waxaa sidoo kale ku jira 7 nooc oo fitamiin ah iyo 11 nooc oo macdan ah oo dhammaan u wanaagsan caloosha iyo qaybaha kale ee jirka dhakhaatiirta qaar ee carabta waxay kula talinayaan caano geel ama caano ari in lagula cuno timirta si caloosha ay faa'iido badan ugu yeelato sidoo kale waxaa la soo jeediyey in timirta la siiyo haweenka uurka leh cilmibaarisyo caafimaad ayaa muujinaya in timirta ay faa'iido badan u leedahay haweenka uurka leh iyo hooyooyinka naaska nuujiya timirtu waxay leedahay maadooyin caawiya xoojinta murqaha caloosha oo sababi kara in si fudud ay hooyada ku umusho oo cunug ku dhasho sidoo kale macaanka timirta waxay hooyooyinka ka helaan awood dheeraad ah sida qur'aanka kariimka lagu sheegay maryama bintu cimraan markii ay dhalaysay nabi ciise calayhi salaam oo foosha ay xanuunka dareemtay waxaa loo sheegay inay cunto timir intaas ayaynu maanta barnaamijkeena ku soo ekeynaa fadlan haddii aad fiidiyogan ka heshay like saar haddii ay tahay markii ku horeysay channelkeena soo booqato fadlan taaba calaamadda subscribe-ka oo nagu soo biir mahadsanid